your beloved one to the final resting place. They also died. haweenaydan waxaa lagu magacaabaa Elizabeth Annan waana haweenayda ay la sogootinayeen meydka raggan waxa ayna ku jaasayaan meydka qof ka mid ah qoyskeeda waxa ayna janaasadani noqotay mid ugu caansan adduunka waxa ayna u dabaaldegayaan dadkii ka dhintay waana qisada fiidiyowga taas oo isku bedeshay wax ay dadkoo dhan ka sheekeeyaan kadib markii lagu faafiyay baraha bulshada fiidiyowgan dad badan ayaa isweydiinaya xaqiiqdiisa inuu yahay muuqaal dhab ah iyo inuu yahay mid matalaad ah waana markii uu noqdo xuska ama wax lagu xasuusto dadka dhintay iyo janaasooyinka haddaba waxaan baarnay dhab ahaanshiyaha fiidiyowgan waxaana noo soo baxday inuu fiidiyowgan yahay mid dhab ah waana qayb ka mid ah warbixin ay diyaarisay kanaalka BBC Africa kaas oo ciwaan looga dhigay jaaska ay sameynayaan dadka xambaarsan naxashada meydka ee dalka Ghana waxa uuna leeyahay Benjamin Ido oo ah hogaamiyaha kooxda ka soo muuqatay fiidiyowga waxa uuna sheegay qaabka loo dhigayo jaaska iyo qoobka ciyaarka inay tahay dalab ka yimid dadka uu qofka ka dhintay waxaana loo tiriyaa qaabka ay u dhigtaan dadka Ghanaiska ah inay tahay kuwa ugu la yaabka badan dunida waxa ayna aasaan qofka dhintay dadkaasi iyaga oo ku jira jawi baashaal farxad iyo mid xafladeedba waxa ayna gaartaa aasida dadka dhintay maalmo asbuucyo xitaa bilaba dadka Ghana waxay aaminsan yihiin in jaaskooda iyo xafladda ay sameynayaan uu farxad galinayo qofka markaasi dhintay waxa ayna kaloo aaminsan yihiin in qofka dhintay uu arkayo kalena soo dabaaldegayo xafladooda caalamka kale ee aakhiro dadka Ghana ma aysan bilaabin xafladani waqti dhow waxa ayna xafladani u tahay mid soo jireen ah intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeennii gaabnaa aan uga hadlaynay xaqiiqda fiidiyowga dhimashada muuqaalkan diyaarintiisa waxaa gacan weyn ka geystay Maxamed Axmed Yuusuf mahad ha ka gaarto